soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helan waxaa ka mid noqonaya ciidamada beesha ciise ayaa diiday inay sii daayaan ku dhawaad 8 askari oo ka tirsanaa Soomaaliland oo maxaabiis ahaan ay u qabsadeen haddaba sababta rasmiga ah ka dambeysay u diideen ayaan rabaa saaxiibayaal inaan halkan idin kula wadaago sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan caawana waxaa markaasi ka mid noqonaya dagaal culus oo caawa ka socda tuulada Gaarisa ayaan sidoo kale saaxiibayaal idin la wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyo ceenkee ah ayaa halkaasi ka soconaya muuqaalkan ayaa saaxiibayaal uga bogan doontaan sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helan waxaa ka mid noqonaya ugaaska guud ee beesha ciise ayaana si kulul ugu eedeeyay Soomaaliland inay gacan saar ay la leeyihiin beesha ciise haddaba muxuu hadalkan ka soo yeeray ugaaska guud ee beesha ciise uu ku jira xaaladda iyo waliba sidoo kale waqtigan la taagan yahay muuqaalkan ayaa saaxiibayaal idin la wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helan waxaa ka mid noqonaya maxaa ka jiro in tuulada Xasan Jidhi laga afduubtay suldaanka guud ee beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi iyana xogtaasi oo faahfaahsan ayaan saaxiibayaal halkan idin kula wadaagi doonaa iyo soo dhawaada aniga waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii ay tahay markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay si share garay saaxiibadaada la wadaag ka mid noqo saaxiibada cusub ee nagu soo biiray si aan u gaarno 10,000 oo subscribe waxayro kaliya ayaa nooga dhiman dhammaantiin waxaan idinkaga codsanayaa qof kasta oo muuqaalkan daawanaya inuu la gareeyo aragtidiisana qaybta hoose noo la wadaago like muuqaalka meel dheer ay gaarsiisaa waa xaqiiq dhammaantiinba inta qof ee daawan doonto haddii ay la gareeyaan meel fog ayuu muuqaalkan gaari doonaa mahadsanidin hagaag aynu ku bilaawno ciidamada beesha ciise ayaa diiday inay sii daayaan 8 askari oo maxaabiis ahaan ay u qabsadeen ciidamada Soomaaliland ka soo jeeda dhawaan ayay ahayd markii askartan gaaraysa ilaa 8 ah ay gacanta ku dhigeen ciidamada geesiyaasha ee madaniga ee beesha ciise intii dagaalka uu socday Samaroon ciisuhu iyo Soomaaliland xaaladdu waxay ahayd mid marba isrogaysay markana Soomaaliland ay sheekada taagan tahay haddii maxaabiis fara badan oo Samaroon ah ay ciisuhu gacanta ku dhigeen markana maxaabiis fara badan oo Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen daraad maalin dhaweed ay ahayd ciidamay qabteen maanta markale 8 askari oo muhiim u ahaa Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen waliba Soomaaliland waxay sheegeen 24 saac ay qabsadeen haddii aan lagu sii deynin ay noqon doonaan mid ay ka jawaabi doonaan ciisuhuna dhankooda uu soo jawaabeen waxay yiraahdeen kartidii shalay aan ku qabanay ayaan maanta leenahay oo aan ku sii heesanayna marka Soomaaliland dhibaato kale ay ku sii noqonaysaa nimankan ciisuhu waa niman adag oo jabhad ah oo runtii aanan maartay falsafad dagaaleed aan lagu gaarin waa intuu dagaalkan uu socday awdal silil Xuseen Jidhi Shadeer iyo waliba sidoo kale Ashcad Xariirad tuulooyin badan iyo deegaano badan lagu dagaalamay iyo degmooyin badanba waxay ahaayeen kuwa markaasi libinta dhankooda raacda Soomaaliland iyana waxay si weyn uga shaqeynaysaa inaysan labadan beelood isu soo dhawaanin si kastoo iyada loo jibiyo ama si kastoo ay isku soo dhawaansho u dareemaan waxay isku dayaan inay maartay colaad ay ku sii dhaxkiciyaan marka 8 askar hadda waa la diiday inay la sii daayo waxay sheegeen beesha ciise inay ku adkeysanayaan sii heenta 8 askari waliba maartay saldhigii ugu weyneed ama meeshii maxaabiistii ugu badnaa ee Soomaaliland Samaroon iyo Soomaaliland ku xirnaayeen ayaa 8 askari iyana markaasi la geyn doono wayna adkaan doontaa haddii ay dhacdo in halkaasi la geeyo askartaasi Soomaaliland marka maxay sameyn karaan 24 saac ay qabsadeen haddii aan la sii deynin ay tallaabo sharci ay qaadi doonaan Soomaaliland bootada waa lagu yaqaanaa waa maamul ka tirsan Soomaaliya haddana awood uma haysto ama markaasi malahan oo isaga dhiciyo beesha ciise kaligeed kuma aado bal ka waran haddii ay isbiirsadaan Samaroonku iyo ciisuhu waxa ay noqon doontaa mid aan loo kala harin oo laga adkaado Soomaaliland oo waxa laga cabsi qabaaba in deegaanadan dhul xeebeedka ay degan yihiin beelaha walaalaha ee wadaaga ah Samaroon iyo ciisuhu ay noqon doonto mid baawarkooda uu sii xoogeysto waa haddii heshiyaan ibtiloo ay ka taagan tahay labadooda is heshii karin Samaroonkuna waa laga dhex shaqeynayaa ciisuhu inta badan hore u sheegeen shar iyo qeyr bay diyaar u yihiin balse laakiin Samaroonku waa dad markaasi inta badan labato waa Soomaaliland markaasi xambaarsan yihiin marka
arrintu waa adkaanaysa haddii aysan wax kusii socdaalaan wax soo naas cadaanayo habeeraatee ma jirto marka 80 askari oo ku adkaysteen ciisuhu waa arki doonaa marka Somaliland ilaa caaw ilaa ay biri waxay sameyn karaan war degdeg ah hadda naga soo gaarayana tuulada Gaarisa waxay sheegayeen in dagaal culus caaw halkaas uu ka qarxay fiidkii 12 maqribnimo iyadoona halkaas ay ku wada dagaalamayaan dagaalkan ayaa u dhaxeeyay Samroon iyo waliba soo kale beesha Ciise iyadoona marka hadda la soo warinayay qasaarooyin lixaad leh in la gaarsiiyay Samroonku xaaladuna ay adag tahay gurmadna uusan halkaas gaari karin dagaalka ayaa si xoogeysanaya saacada ka dambayso walow aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga halkaas ka dhashay haddana waxa la fahansan yahay dadka deegaanku ay arkayaan askartii dhanka Samroonka soo jireen in ay meedadkooda lagu arkayo kuwana ay dabiibayaan kuwana ay markaasi ay la cararayaan si ay xaaladooda caafimaad ay meel kale ugu dabiiban dagaalkan nimankan Samroon iyo Ciise waa uu dheeraaday malaayiin askar ay iska dileen intuu dagaalka uu socday markii ugu wanaagsaneed 2 bilood ayay kala aamusnaayeen oo wax rasaas aysan dhicin waxa la islahaa warwin soo bixi doono laakiin waxay noqotay in mar walba oo la shiriyo Ciise iyo Samroonku Somaliland ay korjoogteen ay ka tahay waxa dhacdo in dhul ay leedahay ama meel ay Ciise ay leeyihiin in ciidamo ka tirsan Samroonka lacag la siiyo ay weeraraan shirki lagu kala kaco ilaa ay 4 jeer ayaa sidaas dhacday oo waxa markaasi ay kala socon waayeen shirki la isugu yimaaday oo Samroon iyo Ciise maartay la rabay in la heshiisiyo Somaliland aan ka dhex shaqeynayso waxa ay diidan yihiin waa inay labadan heshiiyaan haddii heshiiyaan dhulkaas dhul xeebeedkaasi ay iyagu degan yihiin haddii ay ka dhistaan maamulka Govan State ama maamulka Awdal State waxay noqon kartaa mid faa'iido ah Soomaaliya inteeda kala xitaa dawladda Soomaaliya ay qarash gareyn lahayd laakiin Somaliland waxay mar walba ka shaqeynaysaa inaysan beelahaas heshiisin oo dagaalka uu sii socdo marka dagaalkan caawa socdana kiilo qayb ka yahay marka wax isbedel ma jiro oo Ciise iyo Samroonku wax laga sugayo oo heshiis ma jiro xalay muuqaalkan in la wadaago waan ku sheegay in dhawaan ay kulmi karaan ugaaska guud ee beesha Ciise Ibrahim iyo waliba soo kale suldaanka guud ee beesha Samroon Cabdirashiid Doodi waa waxa ay naqanayaan wax rajada ka fog maxaa yeelay dagaalkan abad sii socdo oo sii daba dheeraanay marka xaaladdu ay sii cakirnaanaysaa mooyaane wax isbedel imaan karo oo alla uumay ma jirto wixii oo kale dhacana gadaal ka dhacana ma sheegi karo laakiin siday hadda wax u muuqdaan saansaanta socoto dagaalkan mid istaagi karo meeko dhanka kale aan fiirino marka ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa si kulul ugu eedeeyay in ay muxuu ahaa ay gacan saar ay leeyihiin ciidamada Samroon tani waxa ay tahay mid maragma doonta ah Somaliland inta badan waxa ay xaglisaa ama ay la jirtaaba Samroonku marka loo fiiriyo xitaa mararka qaar markii dagaalka lagu wada jiro Samroonku Ciise is dagaalayaan dhanna Somaliland ka soo weerartagayso iyadoo iska dhigayso mid ay waraag u raadinayso marka ugaaska guud waxa uu sheegay in Somaliland ay soo xigsanayso beesha Samroon balse laakiin in aan la iska aqbali doonin ilaa ay nafta ku jirtana ay dagaalami doonaan ay naqan doonto in maamulkooda Govan State ay hirgeliyaan buuga heer Ciise ay hirgeliyaan haddii sheedar aad ogeedeen iyo tuulada Burlibaxle iyo tuulada Durdur sheekada waa la isaga soo tagay Ashcad Xasan Jidi iyo waliba soo kale tuulada Cabdiqaadir iyo meelo kamid ah Xariirad iyo muxuu ahaa meelay kala duwanaa oo ay ku sugnaayeen Samroonku Ciise ayay sheekada tagtay oo waxa markaas la isku reebanayo habeeraatee ma jirto warguriya la isku gubay caruurtii la iska laayay hablihii iyo barmigeydadii la kufsaday cid la dhaafay ma jirto marka way adkaanaysaa dadkan reerahan si nabad lagu kala dhigo marka xaaladdu ay si cakirnaanay mooyaane wax isbedel kama imaanayo dhankaas marka ugaasku waxa uu sheegay in ay Somaliland ay yihiin kuwa dhaalimiin ah oo ay ka daba shaqeynayaan Samroon iyo Ciise inay heshiiyaan sidoo kalena qodobkan ugu dambeeyay haddii aan fiiriyo maxaa ka jira in caawa tuulada Xasan Jiri laga afduubtay suldaanka guud ee beesha Samroon Cabdirashiid Doodi oo dhowrkii saacadood u dambeeyay muran badan iyo hadalhayn badan markaasi ay u dhaliyay suldaanka guud ee beesha Ciise oo markaasi ku sugnaa tuulada Xasan Jiri wali waa uu joogaa oo ma jiro wax afduuba ah markaasi wax cadeynayo oo rasmi ah la soo bandhigay kaliya warar markaasi lagu daawacay baraha bulshada ayna hayeen iyadoona markaasi la sheegay in Cabdirashiid Doodi ay koox burcada waa sida lagu sheegay oo ay beesha Ciise u dhasheen inay gacanta ku dhigeen afduubteen waa suldaankii dhammaan guud si sahal way adag tahay in lagu qabto ninkaas laakiin waxa markaasi ay naqan kartaa haddii dagaal uu meel uu ka dhaco isna uu joogay beesha Ciise oo wada dhan ay duulaanka ay ahaayeen waa macquul laakiin
afartoo qofood oo sida la sheegay in ay soo qabtaan way adagtahay inkastoo weli uusan suldaanka hadlin haddana wararka hoose aan helayay ay xaqiijiyeen in suldaanka uu nabad qabo oo wax afduubana uusan jirin uu ku sugan yahay tuulada Xasan Jidhi oo isaga maartay la joogo ciidamadiisa kala duwan daawada hadii halkan la soo gaartay xataa qof walba inaan Xasan Xasan kaaga codsanaya inaad page-kiisa fugaa inaad YouTube-kiisa subscribe garisto muuqaalkan la garay si share garay saaxiibada la wadaago kuma siintiin daawashada muuqaalkan mahsanidin